بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي سبحانه كاني ما انتهينا ونرى ودرك روح وجواء يا محمد. وحاهنا كسلام يا طمان ومدى في السودان والدين الجوغان بقضية جديدة. وحنونا هدقنا طمان شعب الصومالي. تجعل كله يدرين كيف في الجنة. وحنونا هدقنا بغلغة ودرين كيوه كسو جواري مثل كسو قوية حمد جوكتا. وحنونا هدقنا dolayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyaguna markaba dareenka dadkooda la socday oo ka jawaabay waana kala nagu soo qaaday muqdisho salaantaa kadib waftigaa hogaaminayey waxaanu socdaal rasmiga ku soo maray dalka la yidhaahdo geni koreakari ama faranji victoria waxaanu sii maray dalka etoobiya waxaanu kala kulan labada meeloodba wax wanaagsan iyo yuhoo fiican iyo qadarin dalka etoobiya waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaan ku haynay labadii wasiire ugu waaweynaa wasiirkii arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxaa kaloo telefoonka lagula soo hadlay isagoo kormeer ku jira taliyaha ciidamada etoobiya oo dhan ee cusub taasina waxaa muujinaysaa qadarinta iyo milgaha soomaaliya loo hayo waxaan uga kulanay oonaan ku tiro gudanad sabab ku guranay wasiirka khaarijiga ee jaad oo aanu waqti ku qaadanay inaanu ka wada hadallo qadiyadda somalilan wax badan uga waftiinay waxaan wadiinay dalka kenya koreakari oo dalalka afrika ugu daaweyna oo madax ka yahay nin oday ah 80 jir dheeraada 50 sano siyaasad soo jiray professor sharciga ah madaxweynaha magaciisa la yidhaahdo alpha conde ninkaasi waa nin ma aamusan mabaadi'da hantiwadaaga ah socialismka waxaa ku dhahaa raggii usoo halgalaystay ulinta bedelkiisa si ay xornimada uga qaataan faransiiska dhowr iyo 20 dal oo uu goystay faransiisku ayaa la weydiiyey may faransiiskaa kusii jiraysaan mise waa ka xorinaysaan keligood geli kuwaakali oo quran ayaa tuwaanu xorinaynaa inta kale wiigeeda yidhaahdeen iyagoo masii joogaynaa isticmaalka teedagalkii intii ka dambeysay mid walba xornimada qaatay waa axmed jimatuule dalkii uu ka talin jiray waayo arag siyaasadeed oo weyn bay leeyihiin dadka iyo odadoodiba si wacan bay loo qaabilay oo lagu wareegeen dabeetana weerarkan xamar baa yimid culays badan bay meelo badan ka maran oo talyaanigu ugu horeeyo oo ahaa hormeydka cadaadka u weeraara talyaanigu ahaa ee u adeegaya qoyl muqdisho odagaas kuma dilcin shalay markuu tegay shirka afrika laba garbana wuxuu soomaaliya xaq bay leeyahay inuu dhegeysto waana arrin innaga inoo taaban dowla afrikaanka walaalayaal weedha xamar ka soo yeedhay laba qodob bay daaran tahay waa laba godobood godob waxa weeye iyaga oo iyaguna nagan waa ciidan shisheeye uu ilaaliyo ayaa waxay maageen dowlad ilaa islamutankii xor ahayd oo sanadkii dhaqaalaheedu boqolkiiba korno oo dadkeedu 10 milyan yahay oo horumarka iyo xooluhu way samaynaysa ayay maageero ku yidhaahdeen sidee gurigaaga soomaaliyaad ugu casuutaa taasi waa golay ka galaan geni koreakari iyagaana iska celiyey iyaguna intii iyo ka badan bay yidhaahdeen dagaalkana iyagaa iska celi kuwaas golanta labaad waa somalilan somalilan waxay leeyihiin markay leeyihiin maxaa u casuumtay somalilan ma geydo maamuuska intaa leeg in lagu soo dhaweeyo bilgahana maahee maxaad maamuuska ausisay waxaan la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee saa ku tashaday marka hore goynta intaa leeg waxa ku kalifaya hebel uma qalmo maamuuska iyo qarankaa intaa leeg uma qalmo maamuuska ah waa goynta intaa leeg waxay u bareereen waa la isweydiinaya waa laba waa rag soo wada joogay soddonkii sano u dambeeyey wixii ka dhacay dalka iyo somalilan wixii loo geystay dad xooglaal u aran way yihiin dhammaantood garan maayo iyagoo taa hore qaray waxay tana ugu dareen waa ta saddexaade somalilan taariikhdeeda way yaqaanaan oo meel walba ay ku qoran tahay oo way ka waxayaan
markii looga jiray soomaaliyadii hore ee bayaaru ka midka ahayd inta taariikh lagu faana miisaankeeda somaliland baa ahayd waa koy ma jirin dad hore afrikaana oo ku yimi isticmaalkii u yimi saanta caddaa baddaan wax kula seexan anagu kula seexan mayno ma jiro dad afrikaan oo yidhi dadkaaga ku dhal gabadhaadu ilmaha calooshiisa kula kada dalka iyaga ee markay foos tahay naga dad kale oo yidhi ma jiro markaanu doono xorriyadda waad haysaa annaga nama goysanaysa heshiis baynu ku dhahay inaad daba joogto waa 3 qodob oo Soomaaliland gaara markii isticmaalku qarnigii 18aad daqiiqadii Afrika soo galayay lama wadaagto dee qolada koonfureed lama wadaagto ta kale ee ugu fahmay adduunkooda marka waa halgankii dawaawiishta Soomaaliland booda ahaa oo ahayd oo tariikhda Soomaaliland oo ciidankii dawaawiishta Soomaaliland ahaa waa kii Afrika ugu horreeyay ee taariikhda soo xaysto waa saddexaad markii Soomaali gobolada haweensiisay dad iyaga oo siyaasiyiin iyo salaadiintoodii maxraqooyinta madaxda oo Soomaali oo dhan ka xeeyay oo dawladda Ingiriiska boqortooyada fariistay wax ka socday inaga jira guddigii Suudaanada iyo odayaasha salaadiinta ka mid ah Abdullaahi Suudaan Abdurrahmaan iyo Suudaan Biixi Fay oo maanta kala sharaab Soomaaliland ahay ee koonfurmay lahayd markay Soomaali isqoonsatay ee qaranimada lagu heshiiyay isku diiday isku maqaafay wixii ka dhacaya ee hadiyada gumaysiin ayaana gumaysiin waa farayay dhiibada fursadeen oo kaga qaad oo maanta way soo jabaan ma ahay waxaan garan waayay halka ay wax ka eegeen markaas qodobka ay ku hindiseen Soomaaliland ma gaydeen midgaas maxaa loo maamusay anaga taariikhda ay soo baranayaan oo tii dambeysay wixii ka dhacay ay ogaayeen سيئة واتي كفتر باي كاتا ثم يكونون يكون قرارين جديد سوماليا تابع ونقوله وكذا علمنا أرض بانو فقد علمنا أخبانو فقد علمنا قرن بانو فقد علمنا حديث بعضنا عدودنا فقد علمنا وهم ما أنت Soomaaliland oo badmaayo Soomaali soo haweensanaysa shanta bilood ee Soomaaliland sabab maxaa loogu baqayaa Soomaaliland waxay ahayd Soomaaliland tii magaalooyinkeeda laga burburiyay 300 oo kun oo guri oo 200 oo kun hargeysa yihiin ayaa madaafiiciyadii loo daraacay ee meeyay ee maydkiina fi ku dhex jira loogu soo noqday markaasay dib u satay iyo ciidamada badbaadinaysa dadka cadaawada leexigan ee Soomaaliland oo qorada dawladii qabiya afweena ay sameysana iyadoo cilmi soo gurman bay ka heshiiyeen oo qorada meesha ugu tagtay oo ka muuqan qaran iyo xoog u dhigtay aan maanta ciidamada karin dhalinyaro haday awliyaashin badar ku saxeen haday awliyaashin Ingiriis oo adduunka waxay wada diyaariyeen ciise darac ka dhistay haday awliyaashin tiina Israa'iil ka soo dhiciyeen wadii ka baqmaan maanta idinka ragga Soomaaliya dhalinyaro bayaashadii ay shaqada gaas oo galeen waxa Soomaaliya baa inta qorin harbo waxa nafta loo waa fiiman qalayna haysan يعني ما تنسى عوض الله كذا كسب حقيقة قدر فيها هذا كسب حقيقة العربية ساد إيتلا هذا إلى يعني كل في جوجو مالته وهذا يبغى يسوي يري كذا وين ما هي إيتلا القديمية والميانة تناسى وياه قالوا ما أوران كسمايا ما أوران بيدنا ما أوران قبل ما أوران مقديشة ما أوران سوي ما أوران كرافة ما تشوف ما كانت تسوي حسين سوي ما كانت وهذا سكران والله والله من دولة دولة متحسن كل نساء والمسلمين دين قرنا شو داتي حجراء شو قولي وهذا بعد عي وحكون الإسلام كان من يوم طلع على وراء قاضي وحكون جالسين وحكون حجراء المسلمين وقال في سوق ساشا ومرد سوق عتاقل مودلا وحكون تلو يسين هذا يسين هذا أنا شيله محل كل شيء هذا المولى يا هذا كنتر يا هذا مدك بسنة وحوس وديا ما تيجي واحد عين إلى هذا من البحر دوسة غيرنا ما بعرف هذا السؤال أنا تمام هذا سأتاك هذا يرجع موتني سوى بنوسة
waxaana guudaysatay inay qadiyadeena keento oo eeyuga madaxweyne alfara waa ku bilaabay hiila waa ku haystaa afrikada galbeed arrintaa waxay yeeltaanasho ninka arrintaa galay diinta islaamka baa la turisay iyo diinkaadiin isku afma mihin isku dhaqan ma mihin faransiis bay ku hadlaan ingiriis bay ku hadlaan isma gaadho isma dhex galo kelmadid iyo dhaqan iyo tod iyo seediixii ahna waxaasuu loo quura waa ka warrama lama cadli waa ka warrama lama cadli waxaan kusoo gabagabeynayaa somaliland guud iyo horumar baan rajeynayaa laga boqon maayo fadhiga kici mayno damarciina wadana codaysu cudurdoodana muqonayo kaltaadoonahay tawayaaqna waa kala weynahay berrito weygaana xisaab safre kala baxanaa caalamkaa kuwa badan baa xigi adigu ciyaaqaadka dacdowdeysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu